Haddii aad rabtid wejigaaga inaad qaab dabiiciya u dhaqdid oo u cadaysid, haddaba iskaraabkan isticmaal. Waa iskaraab yar oo fudud oo wejiga daalka ka qaadayo, wejiga cadaynayo, wejiga liisho iyo qurux ka dhigayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, Ramadaan Kariim. Walaalahayga meel walbo aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga oo walaashin haddii sidaa cashir kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa. waxaan inii sidaa alaabtan yarta oo weelka inoogu jirto. alaabtana waa iskaraab yar oo fudud. iskaraabkan halkee la marinaya waa iskaraab wejiga lagu nadiifinayo oo wejiga lagu dhaqaayo. waa iskaraab yar oo cajiiba oo ani ahaan aan ka helay, maasha Allah, wejiga ka dhigayo, wejiga cadaynayo, wejiga liisho iyo qurux, wejigana fitamiin siinayo, sidoo kalena wejiga kobcinayo, xataa wejiga unugyada ama nabraha madowga oo ku dhintay wuu ka saaraya, wejigana wuxuu ka dhigayaa liisho. labada wejina waa la marsan karaa, wejiga saliida leh oo qoyan iyo wejiga qaleylka, labada waa loo isticmaali karaa, wax dhiba ma lahan insha Allah. marka iskaraabkan fudud ayaan kasoo tuurinaynaa walaalahayga. warkan hadda inkuma badinaya, ramadaana la joogaa, waxaa waaye shaqada badan. marka ka bogta qaybta dambe videoga soo socoto waxyaabaha aan ka sameysanayno iyo sidaan u hagaajisanayno. bismillaah. iskaraabkeeni wejiga inoo cadeyna, inoo dhaqay, inoo nadiifina ayaan sameysanaynaa walaalahayga. marka hore waxaan soo qaatay oo saxankan igu jira waxa waaye waa babaay ayaa marka hore u baahan tahay. waa babaay hal jaba oo aan soo jarjaray waaye walaalahayga. marka hore waxaa u baahan tahay babaay ayaa u baahan tahay. waana babaygii caadiga ahaa oo freeshka ahaa waaye, ma ahan mid aan fridge-ka kasoo bixiyay oo qabow, waa mid fresh oo markaas aan soo gaday. marka hore waxaa u baahan tahay babaay u baahan tahay. waxaan soo qaatay makiinadii lagu shiiday, waa makiinadii heelka lagu shiidayo waaye walaalahayga. marka makiinadeeni ayaan waxaan ku shubanaynaa babaaygeeni jabka ahaa oo inoo diyaarsanaa. midda cabitaankana waa ku shiidan kartaa, midda heelka, midda cabitaanka, mid allaale midii aa heli kartid. babaaygeeni marka aan makiinada kusoo shubanay waan soo shiidanaynaa, wax kalena kuma taabanayay. babaayga keligiis ayaan soo shiidayaa, wax biyo uma baahno, wax caana uma baahno. markii aan soo shiida ayaan walaalahayga isku soo noqonaynaa insha Allah. babaygii walaalahayga waan soo shiiday, maasha Allah, sidaas smoothka ah ayuu hadda inoogu soo baxay, maasha Allah, wax taagtaaga ma lahan. marka sidaasaa la rabaa inuu ku noqdo oo rasiinka. waxaan soo qaatay weel yar ayaan soo qaatay, babaaygeeni ayaan ku shubanaynaa in kamida walaalahayga. 2 qaando iyo haaf babaaya ayaan weelkeena yarka aan ku shubanaynaa. inta kalena waxaa waaye meel ayaan u isticmaalaya insha Allah u baahanahay. marka intaas ayaan ka shubtay 2 qaando iyo haaf camal babaaya ayaan ku shubanay weelkeeni. markii aan babaayga aan kusoo shubanay sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa sonkor ayaa u baahan tahay. 2 qaando sonkora ayaan waxaan ku darsanaynaa babaaygeeni weelka inoogu jiray. waa 2 qaando sonkora, sonkorteeni caadigeed, midda baroonka, midda cadda, inay sonkor ku taalo ayaadna isticmaali kartaa. muhiimadu waa inaad sonkor haysataa. babaayigii iyo sonkortii ayaa isku qasaya walaalahayga oo si fiican isku dhexgelinaya. maasha Allah, iskaraabkan innaba caadi ma ahan. wejiga wuxuu ka dhigayaa nadiif, qurux, liisho. wejigaaga waa jeclaanaysaa mar allaale markii aad ka dhaqaysid ayaad dareemaysaa dee shaqada uu qabtay. marka insha Allah walaalahayga ka faa'iideysta. sidoo kale wejiga daalku ka bixinaya, wejiga dhan wuxuu ka dhigayaa qurux, kaale iskaraadi dhan waa isjeclaanaysaa. iskaraabkii walaalahayga markii aan soo qasay, maasha Allah, sidaas ayuu hadda inoogu soo baxay, maasha Allah. sidaas ayuuna diyaar noogu yahay. haatan kaliya wuxuu u baahan yahay in la isticmaalo. marka sidee u isticmaalaysaa waaye, marka hore waxaad samaynaysaa wejiga iska soo dhaqaysaa, iskaraabkaaga diyaarsanaysaa, ka bacdina wejiga ayaa marsanaysaa oo saaranaysaa. waa ku joogjoogaysaa intuu kugu qalalayo, maasha Allah, oo wejiga uu dhexgalayo iskaraabka oo wejiga la falgalayo. waad ku joogaysaa 20 daqiiqo 30 daqiiqo ayuu kuu saarnaanaya, ka bacdina waad iska dhaqaysaa. maasha Allah ayuu wejiga ku noqon doonaa. hubaal waaye taasna, aniga ayaa ka huba walaalahayga. babaayga iskaraabka laga sameeyay hadda xagga wejiga marnaba laguma gaaro. wejiga fitamiin uu siiyaa, wejiga wuu dhaqaa, wuu nadiifiyaa, wuu qurxiyaa, kaale iskaraab wejiga ka dhigaa, wuuna kobciyaa walaalahayga. markii aad wejiga ka dhaqaysid ayaadba hadda ka dareemaysaa. sonkortana hadda maasha Allah, iskaraab ahaan markii wejiga loogu sameysto ama jirka lagu dhaqanayo hadda leen kama sheekeyna ayadoo diyaarsanay soo gadatiin. waa is ognahay iskaraab waxaa jira oo sonkor ka sameysan oo jirka iyo wejiga lagu dhaqo. hadda laguma gaaro xagga jir dhaqowga iyo weji dhaqowga sonkorta. maasha Allah ayay wejiga ka dhigtaa. wejigana hadda way dhalaalisaa, quruxna way ka dhigtaa, liishana way ka dhigtaa, wejigana nadiif way ka dhigtaa. alaabta xataa wejiga nabraha madmadowga unugyada wejiga ku dhintay way ka soo saaraysaa. wejiga hadda waxay ka dhigaysaa qurux,
kaal iskarag adi unba iska dareemi doontin hadda insha Allah. marka scrubkeena hadda walaalihii ila soo tijaabiyo waxaa waa scrubkan fitamiinkiisana waa dhameystiran yahay. marka rabtid ayaa wajigaaga marsanaysaa. hadda aragtid wiigi oo dhan waa iska marsanay. hadda aragtid 3 maalin ka marsanaysaa wiigi, adiga unbay kugu xiran tahay, tan kale ma halaabayo. fridge-ka gashanaysaa, hal wiiga samaysanaysaa. fridge-ka meesha aan barafka ahayn ayaa dhiganaysaa, qaybta hoose oo fridge-ka dhiganaysaa, ma isbedelayo, sidiisa ku ahaanaya. hadda aragtid maalinkii habeenkii mar allaale waqtiga aad jaanaysid ayaadna marsanaysaa. hubaal waad ku faa'iidi doontaa insha Allah. ilaahay idinkiis wajigaagana hadda wuu ku dhaqman doonaa adoona wajigaaga saaluun tagin oo dhahin ii dhaq, buuba nadiif ku noqonaya oo ku cadaanaya oo liisho iyo quruxna ku noqonaya, uuna ku kobci doonaa insha Allah. ilaahay idinkiis walaalihiga hadda waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. waa inoo kalanti dambe oo xiiso leh aniga oo sida video kale cusub afurkaani wacnaado. haddii videogan ku soo gaaro adoo afuraysid, hadda afur wanaagsan iska afurka ku wacnaado. haddii uu soo gaaro adoo sooman, hadda afurka ilaahay nabada kugu gaarsiiyo. videogana sii share gareey asxaabtiina la wadaaga. waxaa laga yaabaa qof walaalkaaga inuu ka faa'iideysanayo. janaalka haddii aad ku cusubtahay soo dhawo minankaaga waaye.